kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartan la socota meel kasta joogtaan dunida kuna soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee loogu magac daray rumaysan ama rumaysan. barnaamijka toddobaadkan waxaa ku eegaynaa cudurrada lagu kala qaado shumiska waxaa lagu kala gudbin karaa dhowr xanuun kuwaasoo ay keenaan jeermis, bacteria ama virus. labada jeermis oo ku noolaan kara caliyada ama dhiigga. sidee shumiska lagu kala qaadi karaa xanuun? taabasho waa inuu qofka uu shumiyo meel leh jeermis gudbin kara xanuun ama caabuq. dhibco qoyaan, dhibcahaas oo xambaarsan jeermis ilma aragta ah wuxuu ka imaan karaa sanka ama dhuunta, sidaas ayuuna qofka ugu kala gooshi karaa xilliga shuminta. qofka kale wuu liqaa ama wuu neefsadaa dhibcahaas xambaarsan jeermiska inta uusan cudurka qaadin. hawada waxaa jira xanuuno lagu kala qaado neefsiga oo labada qof iswadaarsadaan xilliga shumiska. waa maxay xanuunada lagu kala qaado shumiska oo keena jeermiska fayraska? hergab, ifilada, durayga, qandhada, qanjirada, glandar fever loona yaqaano xanuunka shumiska waa xanuun uu keeno caabuq fayras loo yaqaano EBV. waana xanuun si sahlan ugu gudba shumiska, waana sababta loogu bixiyay cudurka shumiska kissing diseases. caabuqyada herbeska waa caabuq ay keenaan dhowr fayras oo kala duwan. waa xanuun ku kala gudbin kara taabasho, wuxuuna furyaha ku sameeyaa nabro qoyaan ku leh afka. sidoo kale waxaa la mid ah cudurka busbuska oo isagoona shumiska gudbin kara hadduu nabar uu qofka ku leeyahay meela u dhow meesha la shumiyey. cagaarshowga nooca B waa cudur uu keeno fayras, waxaana lagu kala gudbiyaa shumiska inkastoo badankiis lagu kala qaado dheecaanada jirka oo isgaara. laakiin markuu qofka xambaarsan yahay tiro fayras oo aad u badan haddana firfircoon waa lagu kala qaadi karaa shumiska. honqorta markii ay ka soo baxdo afka waxaa lagu kala qaadi karaa shumiska, khaasatan haddii honqortaas dilaac leedahay. waa maxay xanuunada lagu kala qaado shumiska oo keena jeermiska bakteeriyada goryohoga meningits waa xanuun halis ah, qofkana u dhiman karo, wuxuuna ku faafaa taabasho ama neefsasho dhibcooyin qoyan droplets xilliga shumiska. bakteeriyada suuska keento waa bakteeriyo ilkaha ku dul korta, waxayna keentaa ilko bolol. tibishada sanbabka oo lagu kala qaado neefsashada markii la shumiyo. inkastoo ay cudurrada aan kor ku soo xusay ay ugu horeeyaan cudurrada shumiska lagu kala qaado, laakiin waxaa jiri kara cudurro kale oo ka imaan kara hadduu faruuryaha mid ka mid ah labada qof ee is-shuminaysa ay jiraan ay xambaarsan yihiin jeermis keeni kara xanuuno kala duwan. waxaa ilaa mahadis ah in qaadista xanuunadan aysan aad u badnayn, laakiinse waxaa muhiim ah inuu qofka uu sameeyo tilaabooyin taxadara sida tan: ka fogow shumiska qof xanuunsan. hadduu uu qofka afka ku leeyahay nabar ama dhaawac, ka fogow inaad shumisid. ku dadaal caafimaadka ilkahaaga. haddii aad hergab qabtid, qofna ha shumin. isticmaal maro ama qufacayso ama aad hindhisayso. ka fogow shumiska xaaraanta ah ama dadka aadan garanayn. waalidka waa inaysan shuminin carruurta ka yar 1 sano, aysan ka shuminin khaasatan afka. intaas ayaan kusoo koobayaa toddobaadkan barnaamijka. wixii fakar iyo tusaale ah inoo haysaan waxay idigu wareegi kartaan kommentiga. waa jaal hanuuno idan leh, isma dhaafno.